maanta way taariikhdu tahay 17 bishii shanaad 2015 waxaanu daahfuraynaa kambaniga Somali Safe oo ka shaqeynaya dabdamiska Puntland. وبالله التوفيق. شكرا. قلبك سوم سيف الصومالي فاير اند سيفتي كمباني كانتي وهذا على ركتانين waxa weeye waxa lagula dagaalamo dabka yaryar hadeer dabka yar iyo dab yaraan buu ka bilowdaa marka waa first aid dabku intuu yar yahay in dadku fahmaaneen oo la dagaalamo alaabadii lagula dagaalami lahaa oo insha Allah iyagana wax tari lahayd weeye alaabta hadda taala oo ilaa 7 nooc oo aan markaan qiyaasnay dababka boosaas ka dhici kara 7 nooc oo dabdamiya oo ku haboon baa yaala dukaankan hadda inuu dhextaagan maxay dadku soo maxaa loo isticmaalaa dab nooc waxa loo isticmaalaa adkaha waa loo isticmaalaa dabka ka dhasha مثلا looxa daahiyada marada مثلا قديفة قرية تال وحي أتكاه أو combustible waa loo isticmaali karaa waxa kale oo aalada taa loo isticmaali karaa wixii dareere dabka dhashay dareere waxyaalaha ay kamid yihiin dieselka batroolka tinarka waxaan ku sheegay ranjiga waxyaalahaas oo dhan barafuunka oo kale wixii dareere oo guban kara tii loo isticmaalayo baanu haynaa waxaanu haynaa wixii loo kitchenka loo isticmaal lahaa oo oliyada wax lagu karsado iyo xayrta iyo halkaas dabka ka kaca wixii lagu la dagaalami lahaa baanu haynaa biyihii baanu haynaa oo hoteelada iyo anfacayo hoosrilkii ilaa 30 mitir kala dirirayay ma garanaysaa dabka kala dirirayay waa haynaa almuhim meel walba oo u baahata inay som safe dabdamiye ka iibsato waxaanu siinaa dabdamiyaha nooca ku haboon baanu siinaa anagu ma nihin meherad inta la soo galo dadka wax la iska siiyo lacag doona ma nihin anagu ujeedada weyn aan meesha u nimo waxa weeye inaanu qayb ka noqono badbaadinta ممتلكاتك أما هنتيدا ددوينة نفط إلهي ببدبادية لكن تاس إن نقيب فعالية أو effective وشقيسة أنو كنا قلنا بريورتي إنه معها إن أنو بروفيت سمينه بريورتي وحنو إن أنو مجتمع يدتك مجالنا عندكن أنو حكترنو أرنتاش أو كوير هذه يا دوبي runtii shirkadda Somali Som Safe waxaan u aragnaa inay tahay shirkad muhiim ah dalkuna uu aad ugu baahnaa timina xilli loo baahan yahay iyadoo in badan la rajeynayay cid ka fikirta sidii loo badbaadin lahaa sida badan ee Puntland sanad kasta ku gubata ha noqoto dooyaha ha noqoto baqarada ganacsiga ha noqoto dadka barakacayaasha ha noqoto guryaha deegaamada ku nool yihiin oo sanad kasta ay dhintaan dad dab saameeyay ay burburaan hanti dab saameysay waxaan u arkaa inay tahay shirkad muhiim ah dadka ka fikira intaasna ay yihiin dad aan raadinayn inay helaan faa'iido kaliya laakiin u daneynayay mujtamacooda si ay uga badbaadi lahaayeen dhibaatada kaga timaada gubashada kambaniga Som Safe oo marka la soo gaabiyo la yiraahdo Som Safe laakiin magaciisu sida saxda uu yahay shirkadda qalabka badbaadada iyo dabdamiska Soomaaliya ama Somali Fire and Safety Company oo maanta lagu daafurayo Boosaaso Puntland waa kambani ka shaqeeya iibinta dayactirista daraasaynta qalabka dabdamiska iyo qalabka badbaadada dadku ay u isticmaalaan shaqooyinka waxaanu keenaa nooc kasta oo dabdamisa oo dadka u rakibaynaa waxaan u samaynaynaa daraasad in lagu sameeyo deegaanka qofka oo nooc ku haboon loo sheego waxaanu u dayactiri doonaa qofka markaan ka iibino qalabka waxaanu ku tababari doonaa qofka ama sharikadaha ama ganacsiyada dadka jooga inay bartaan sida dabka la isaga damiyo sida looga hortago dabku marka guud ahaan la fiiriyo intuu yar yahay ayaa laga adkaan karaa mar hadduu weynaado dhibaato weyn buu geystaa khasaar uu geystaa dadka khasaar uu geystaa xoolaha saas daraadeed intuu yar yahay qofku marka uu arkaba wuxuu kula dagaalamayaa qalabkan aan anigu iibinayno tababarkiisana wuu heli doonaa adeega oo markii alaabta ay soo adeegsado ama ay brasharkeedu ka dhacaan sidaas oo kale silindarada waa loo buuxinayaa waa loo dayactirayaa noocyadaan iibin nooca ka mid ah extinguishers ama dabdamiyaasha nooca dry powder chemicalka la yiraahdo nooca CO2 da la yiraahdo ama carbon dioxide ka nooca foamka la yiraahdo
waxaa jira iyaguna fire hose reels kuwa la yidhaahdo oo tuubooyin iyo bamam loogu talagalay guryaha dhaadheer oo dabaqyada iyo meelaha dadku isugu yimaado oo loogu talagalaya in bamna loo rakibo qaab biyuhu ay ugu shaqeeyaan loo rakibo waxaa jiri doona qalab baalkii alarm system la yidhaahdo oo isaguna detection fire detection la yidhaahdo wuxuu ogaan doonaa haddii meesha dab ka kacay kadibna wuxuu qaylu samaynayaa si dadku ay u ogaadaan in dab kacay waxaanu kala talin doonaa dadku sidai guryaha u dhisanayaan waxaan kala talin doonaa gaadiidkooda iyo siday u adeegsanayaan shidaalada iyo kaalimada shidaalada iyagana waxaanu haynaa package guryaha jikooyinkooda iyo arrimahaasna waxaanu haynaa package ku saabsan qalabka dabdaminta intaanu keenaa intaa weeye waa soo dhaweynaynaa ganacsatada waa soo dhaweynaynaa householdska dadka guryaha waa soo dhaweynaynaa hoteelada dadka badan ku nool yahay kulligood in loogu rakibo qalabkaas su-aalkan ku waxa weeye dee haddii dadku ay bartaan hadda qof kasta u isticmaalo mustaqbalka ma bulshad baad keenaysaan ma alaabtan aad markasba cusub baad keenaysaan see arrintaas xalinaysa mise see qofku markay hawsha ka dhoonto loogu cabaynaya bal mustaqbalka see arrinta u maarayn doontaa haddii macaamiisha aad istaan ad bilaabaysaan boqol jibaad ka badan ay macaamiisha u bataan aad baad u mahadsantahay su-aashaas qalabkan markii hore aan ku talagalnay markaanu keenaynay inaanu dadka u keenno horta anwaacda ku habboon qodobka labaad anwaacdaanu keenayno inaanu helno dayactir oo qofku hadduu barashar ahaan ka dhaco inkastuu taymkiisu raagayo 6 sano 10 sano midkiiba uu gaari karo haddii aan dab loo adeegsan ama aan dhibaato kale ku dhicin waxaanu haynaa warshadii dib u buuxinaysay nooc kasta haddii tahay carbonka haddii tahay dry borderka haddii tahay foamka intaba diyaar weeye oo qofka markii uu soo adeegsado ama barasharkiisu ka dhaco ka ciladoodo dib baa loogu habaynayaa wuxuuna dib u isticmaali doonaa isla silindarkiisa isagoo lacag badan ka bixin qiimaha ka wada qiimuhu waxay ku xiran tahay package-ka u baahan tahay waxaan is leenahay waa ku jaban yahay dalkeena